السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا عاوية جنال برنامج عصب برنامج كاسو أنا أومغ عدرني بدفرن برنامج كان بدفرن وحا إذن كوغسو قد بيدونا برنامج كلا دوان أو حيسا له وحانا كو بالله دونا برنامج كوكوادو برنامج ترجبان أو حساب أساسك وحانا إنوسو قد بيدونا ولالكينا عبد واحد شيخ إبراهيم نور تاوشا معا kusoo dhawo barnaamijkeena maanta waxaan baran doonaa basic number systems oo loo yaqaano qaabka numberku dhisan yahay iyo place value oo qiimo rogeedkii ah hab nambareedka oo isticmaala xisaabta waxa loo yaqaanaa sal 10 ama base 10 sababta waxaan isticmaalaa 10 calaamad oo kala duwan si aan wax u xisaabino xisaabta markii la joogo waxaa la isticmaali karaa bases kala duwan sida sal 2 iyo sal 8 ila fiiri marka faa'iido u leeyahay sal 10ka iyo meesha laga keenay 10 calaamad aan u isticmaalno xisaabta waxa loo yaqaanaa godadkan waxayna kala yihiin ewer 1 2 3 4 5 6 7 8 iyo 9 caadi ahaan waxa laga yaabaa inaad u malayso inay yihiin 9 god balse ogow in zeroda ay ka mid tahay godadka si aan u aragno ahmiyada ay leedahay number systemka oo u leeyahay godadkan hadda aan sheegayna 9ka ah bal aan fiirina bal geedahan ku yaala tufaaxyadana waxaan rabnaa inaan soo gooyno haddana aan tirino balse ila eeg qaabka loo tirin doono waxaan isticmaalayna wax loo yaqaano number place si aan wax u xisaabino si aan u fahamno qaabka number systemka u shaqeeyo waa inaan ka soo qaadano meesha inay yeelaan hal godkaas halkii mar qaadi kara hal number haddaan godadkan tusaale ahaan ku kordhino lambar waxay tilmaamayaan inta tufaax aan haysano kasoo qabo haddaan ku bilaabno godadkani tufaax la'aan markaad tirinayn waxaan ka bilaabi doonaa ewer sababta ewer waxay tilmaamaysaa wax la'aan tirinta markaasaa ka bilaabi doonaa hal ilaa aan ka gaano lambarka ugu dambeeya ee 9ka ah kawarna hadaa hal god kale ku soo darno lambarada 9ka ah maxaa sameeynaa waxay noqon doonaa marka 10 god marka anaga lambarka ugu weyn ay haysan meesha waxa bay 9 hadii marka hal 9 lagu soo daro intee ka keenayna marka lambarka 10 maxaa sameeynaa marka waa inaan isticmaalo kooxeen hadaa hal tufaax ku soo darsano waxay isku noqon doonaan 10 sax hadaa marka 10 ka isku ururino hal koox aan ka dhigno hadda marka maxaa haysanaa 10 tufaax haysanaa balse hadii group ahaan loo eego meeqa way hal koox haysan ha ka cabsan inay kugu yaraadaan lambarada ilaa 9 maadaama aad taqaanid xal kugu dhow waa inaan isticmaalo marka godka kaleeto aad buu noogu faa'iideey doonaa kan qaybta bidixda ka jirto midigta ka jirto wuxuu tilmaamaa tufaaxyada xabadka ah midka kale bidixda wuxuu tilmaami doonaa koox-kooxyaasha 10-10ka ah 10-10 wax uu aruursan ayuu ku tilmaami doonaa tusaale ahaan haddaan haysano hal koox oo group 10-10 ah xagga waxaa dhigi doonaa 1 haddii 2 ay noqdaan tusaale kale waxaa qori doonaa 2 haddii 3 ba ay noqdaanna 3 aan ka dhigi doonaa 3 koox oo yani oo 10-10 ah saasaan ku wadi doonaa waad aragtaa xaggan waxa ka socdo waxaan isticmaalnay 10kii god caadiga aan naqaanay ayagoo group aan ka dhigin ama koox-kooxeynayna 10kii lambar oo eber ilaa 9ka ah dib u isticmaalnay balse toogtan waxay tilmaamayaan lambar waaweyn haddaba marka cusub maadaama uu tirnaa group 10-10 ah waxa ku magacaabeynaa tobnaad halka lambarkii asalka ah koowaadna aan ku magacaabeeno koowaad maadaama uu tirnaa lambarada kaliya haddaba la soco war muhiim ah ma isticmaalaan lambarkan in lambar kale godkiisa ku dejino ku bedelno balse waxay isticmaali doonaa laba lambar isgarab yaalo midkan waxnoo tilmaami doonaa godadka halka ah halka midka kalena uu noo tilmaamayo tirada 10-10ka ah annagoo isticmaalaan labada lambar isgarab yaalo waxaan ku muujin karnaa gruubyada 10-10ka ah tirooyinka u dhexeeya tusaale ahaan haddaan haysano 30 tufaax godka tobnaad wax ku qori doonaa 3 maadaama aan haysano 3 gruub oo 10-10 ah eberkaasna wuxuu tilmaami doonaa inuusan jirin wax tufaax oo kaliya kawaran bal haddaynu haysano 32 tufaax 30ka waxay tilmaami doontaa 3 gruub oo 10-10 ah halka labadana ay tilmaami doonto laba tufaax oo kaliya oo ka baxsan gruubka 10-10ka run ahaantii anagoo isticmaalna kaliya 10kaani lambar aan naqaan base-10ka waxaan ku tirin karnaa lambar aad u badan ilaa laga gaaro 99 labada god waxay joogaan heerka ugu sareeyo lambar ka sii weyn oo la gaari kara ma jiro haddaba waxaan ku qasbanaa inaan keeno god kale oo saddexaad si uu noogu noqdo 100 anagu haysana 99ka lambar haddaan ku soo darno hal lambar oo dheeri ah wax isku noqonayaan sax ahaantii 100 haddaba 100ka hadda isku ururno hal group ka dhigno waxay noo matali doonaan hal group oo 100 haddaba godka cusub wuxuu noo tirin doonaa godadka 100ka taa oo ka dhigan inaynu isticmaali doono isla lambarka base-10ka oo naqaan 10ka xaba ahaa si ay noogu matalaan lambarada cusub haddaba lambarkaasi godkiisa waxaa ku magacaabi doonaa godka 100 maxaa yeelay waxaa lagu tiriyaa gurbiyada 100-100ka ah hadda waad aragtaa sidee lambarada u shaqeynayaan markii la joogo number placeska haddaba waxaad aragtaa in lambaradani boosas kala duwan loo isticmaalay laakiin ay kala tilmaamayaan tirooyin kala duwan oo kala waaweyn godadka lambarada ay degan yihiin waxay tilmaamayaan inta group aan ka haysano lambarka
tusaale ahaan haddii godka koowaadka aan haysano kale wuxuu tilmaamaa inta xabadka aan haysano kan tobnaadkan wuxuu tilmaamaa inta group oo tobanka aan haysano kan boqolaadna wuxuu tilmaami doonaa inta group oo boqolka aan haysano lambarada hadday bataan waxaa ku soo kordhin doonaa god cusub godkaas cusubna waxaa dhigi doonaa bidixda godkii hore soo u tilmaamo lambarka weynkii hore godadka cabirada ay kala waaweyn yihiin all waa isku wada mid midda labaad aa u baahan tahay inaad ogaato waa in lambarka markii koowaadka laga soo bilaabo bidix loo dhaqaaqo uu sii weynaan doono midda saddexaad aa u baahan tahay waa in lambar baleysiska ay kala weyn yihiin mid walba midkii ka hore uu ka weyn yahay 10 laab 10 waa 10 laabka hal 100 waa 10 laabka 10 naqshada saasay ku socon doontaa lambar walba lambarka ka dambeeyo 10 laabkiisu noqon doonaa haddaba 100 lambarka ka dambeeyo noogu xiga muxuu noqon doonaa lambarka xiga waa inuu noqdo lambar ah 10 laabka 100 waana 1000 godka wuxuu noqonaa kumaad lambarka xiga wuxuu noqon doonaa 10 laabka lambarkii ka horeeyay oo muxuu noqon doonaa 10000 hore uu sii socon doontaa lambarka qaabkaas ku socon doonaa kan xiga wuxuu noqonaa 100000 kan ku sii xiga wuxuu noqonaa milyan kan ku sii xiga wuxuu noqonaa 10 milyan kan ku sii xiga 100 milyan waxa ku sii xiga doonaa bilyan aad bay u adkaanaysaa in la kala aqoonsado lambaradaan aad u tirada badan markii aad isha ku fiirisid marka waxaa loo baahan yahay in la kala ogaado lambaradaan waxaa loo baahnaan doonaa wax lagu kala saaro kala saaritaanka marka wuxuu noqonaa calaamad gooni ah oo loo isticmaalo in lambarada lagu kala saaro loo yaqaano hakad ama koma si loo kala aqoonsado godadka waxay yihiin inuu yahay godkan komaad ama milyamaad aad baad ugu mahadsantahay daawashada daawad barnaamijkan haddii aad ku cusubtahay channelka caawiya subscribe dheh si asxaab badan u gaarto share haddii ay noo haysid talo tusaale iyo soo jeedin barnaamijka ku saabsan bad furan waxay noo soo gudbisaa ciwaanada shaashada ka muuqdo fikirkaagu waa inoo dhiirigelin